Soomaaliya waa dal dihin dhanka wax soo saarka qaybihiisa kala duwan balse dadkiisu ay ka aradan yihiin dheemanka dhex eegaaga dalka Soomaaliya oo leh kheyraad kala duwan sida kalluumeysiga, beeraha iyo xoolaha nool oo ka mid ah waxyaabaha Soomaalidu ay hodanka ku tahay ee Ilaahay ugu nimceeyay ummadda Soomaaliyeed. Waxaa isweheshada dal dunidu ay damac ka leedahay dhanka wax soo saarka iyo kheyraadka dhex yaala balse dadkiisu ay dibad dhaqan iyo dhuuni badan moodeen. Cabduqaadir Nuur Hadaafow waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo muruq iyo maskaxba geliyay tacbashada wax soo saarka dalka, waxaana ka waraystay qaar ka mid ah wax soo saarka dalka oo looga maarmi karo baahiyo badan oo hadda dalka dibaddiisa Soomaalida looga soo dhoofiyo. waxaan tacabnaa afar nooc oo dalag ah oo kala duwan. Dalagga koowaad waa maxogga oo ah kanaha buruqdiisa. waxaa laga dhigaa marka buruqdaas bur ayaa laga dhigaa. burkana wuxuu sii noqon karayaa wixii burka caadiga laga samaynayo oo canjeero, doorshe, muufo, burka caadiga oo maqaayadaha laga cuno isagana intaasba waa noqonayaa. waxaa kaloo aan tacabnaa waambe oo isagana waqtiga hore la tacbi jiray haddana weli dadka qaarkood ay tacbadaan. wuxuu wanaagsan yahay dadka oo qabo sokorta ama diabetic. isagoo la shiidayna waa kanaha sidaas lamida isagana waxaa laga dhigi karaa wixii laga dhigay maxogga si lamida isagana canjeero laga dhigi karaa. Kan waa waambaha ii sheegtay markii la shiido soo noqonayaa Sooma labadan. waxaa intaasoo faa'iido uu sharaxaya aqoonyahanku leh waa maxogga oo ka mid ah wax soo saarka dalkeena hooyo. waxaase sidaasi si la mid ah asagana looga maarmi karaa dhammaan burka qaybihiisa kala duwan ee dibadda laga keeno. waambaha oo ka mid ah kheyraadka dalkeena kaasoo looga maarmi karo dhammaan adeegyada laga sameeyo burka dibadda laga keeno. waxaana mar labaad sharaxaya Master Hadaafow. sidaas lamida isagana markii la shiido oo si fiican burcaba laga dhigo wuxuu noqonaa canjeero noqonaa, doorsho noqonaa, wax walba uu noqonaa. hadda inta waxaa iiga muuqda bur malawax waxaanoo dhan waxaa leedahay dalagan inta ka muuqda laga sameeyey gaar ahaan burkan oo laga sameeyey maxogga laga sameeyey. burka maxogga laga sameeyey. dalagga kale oo saddexaad noo soo weheliyo waxaa waaye duqumiyaa la yidhaahdaa. waa tanaa ayadani iyadoo oo mirihii ah markii la shiido ayadana sidaasi lamida wax kasta aale laga dhigi karaa, mashaariya laga dhigi karaa, canjeeraa laga dhigi karaa, muufa laga dhigi karaa, doorshaa laga dhigi karaa, wax walbaa laga dhigi karaa. waxa uu sheegay Gudoomiye Cabduqaadir Hadaafow in dalkani qani yahay waxna la tacban karo balse ay muhiim tahay in warshado wax lagu keydiyo la helo. dalka ayaa wax walba laga helaa. aniga kambani ahaan marka wixii waa tacbi karaan laakiin waxay u baahan yihiin in lagu sameeyo processing oo la warshadeeyo. warshado waaweyn ma hayn anaga laakiin waxaan isticmaalnay gacan iyo makiinado aan isticmaalno oo looga dhigay. qorshahana waa noogu jirtaa in aan warshadeyno oo aan ka dhigno bur waddanka dhan kaafi kara inaan ka dhigno. waxaa kaloo noo dheer dalag kale oo la yidhaahdo ma soo keenin eeda meesha waxaa la yidhaahdaa xaskul ama sisala la yidhaahdaa. Kenya iyo Tanzania ayaa laga tacbaa. waxyaaba badan laga sameeyaa. muddooyinkan dambe bulshadeena Soomaaliyeed waxa ay sii tuurayaan calankii bariiska iyo baastada laga keena dalka dibaddiisa. waxaadna arkaysaa in dalagyada dalka ka soo baxa qaybihiisa kala duwan la isticmaalayo taasoo caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dadka iyo dalkaba dan u ah. dhammaan hadda dadka inkastooba markii horeba ay baasta iyo bariis ay cuni jireen hadda waa ka soo hareen badankooda. waxayna isticmaalaan waxyaabaha dalagga gudaha ka soo baxo. haddana waxaan ku dhiirigelinayaa inay isticmaalaan si ay caafimaad u helaan. waxyaabaha caafimaadka qofka caafimaadkiisa wuxuu ku xiran yahay raashinka uu cuno sida uu yahay. haddii raashin uu cuno oo maaragtay expire ah dhib fara badan ka soo gaaraya ama sokorta kici karaya. ramadiga haddii aan tusaale usoo qaadano sokorta uu kicinaya laakiin saddexdan dalag ee aan tacabnay ma kicinaya sokorta. ma laha maado la yidhaahdo gluten. أما يقولون عليها بروتين، بروتين كاس حق إياه سكرت،
laakiin saddexdan dalag maxoga waambaha iyo doqomeyda ma laha glutiinkaas ma laha marka waxa waaye wax badan oo badan ay dadka ka faa'iidi karaan haddii isticmaalaan. ugu dambeyn waxa uu Cabduqaadir Nuur Hadaafo oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed waqti iyo xoogba geliyay sidii looga faa'iideysan lahaa wax soo saarka dalka ayaa dowladda gaar ahaan wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya baaqu diray. dowladda iyo wasaaradda beeraha waxaan kula talinaynaa in ay joojiyaan horta waxyaabaha banaanka laga keenaa oo ama lacag badan la saaro wixii dadka tacbayaan in gacan lagu siiyo. annaga haddii aan dowlad wax ka helnay haddaan dowlad ka helin waxaa naga go-an in aan tacabno oo gaarsiino dad oo ay insha allah saasaan rajaynaynaa waana micnihii waa naga go-an tahay ma ahan keliya inaan hay-adda iyo dowladda isku haleyn doonto dowlaheena. waa anigoo Axmed Raas Maxamed Faarax halkaad warbixintan kala socotaan waa 5 Somali TV waxaan idinkaga tagayaa heestii ahayd muruqina maalo dulka mira ku beero maalo dulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaaga